بسم الله ومركا لا iyo fariimihii halgamaaga fariin culus baan maanta wadnaa waa tacsi culus waa tacsidii abwaankii ummadda Soomaaliyeed qorraxdii Soomaali weyn dayixii halgamaaga xidigtii fanka Soomaaliyeed wadanigii weynaa aabihii halgamayaasha shidaalkii halganka jawxo iyo halgankii Soomaali weyn iyo fankii jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo wadaniyiintii Soomaaliyeed horyaalkoodii hogaamiyahoodii halyeeygii weynaa ee Soomaaliyeed abwaan maxamuud cabdullaahi ciise singub tacsidiisii oo la wadaagayno shacbiga Soomaaliyeed oo tacsiyeynayno shacbiga Soomaali weyn shacbiga Soomaalida ogaadeynaya xubnaha jawxo taageerayaasha jawxo ehelkii iyo qoyskii qaraabadii iyo saaxiibadii bahda fanka Soomaaliyeed bahda mu'allifiinta Soomaaliyeed bahda suugaanta Soomaaliyeed bahda dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed dhamaantood oo noloshiisu ay waraabin jirtay intaas oo dhan halgamaaga wadaniga Soomaaliya jooga ee Muqdisho jooga wadaniga meel kasta oo Soomaaliya joogto wadaniga iyo halgamaaga oo oo shidaal u ahaa ayaan doonaynaa uga tacsiyeyno dadka Soomaaliyeed ehelka qaraabada iyo qoyskaba annagoo isaga tacsiyeyna jawxo ahaan iyo muxuu ahaa saaxiib ahaan iyo halgamayaal ahaan oo ahaa shidaalkii jawxo oo ahaa qorraxdii wadaniyadda Soomaaliyeed oo ahaa dayixii fanka iyo hidaha iyo suugaanta Soomaaliyeed oo ahaa xidigii dhaqanka Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada ama dhaqande ama afde ama hidade ama diinde ama jiritaande ama midnimade ama Soomaali weynde ama xoreynde ama dagaalande ama difaacide ama muxuu ahaay geesinimade shidaalka meesha laga qaato ahaa waxaan dadka Soomaaliyeed uga taxsiyeynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo samir khayr qaban inaga siiyo bedel khayr qaban meeshiisa inoo soo geliyo بدل خير قبل ماشي سينو سو قليو تير وين با Soomaali ka dumay ilaahay wuu karaa inuu bedel inoo soo celiyo qoyskana bedel siiyo bedel khayr qabo jawxana bedel khayr qabo ummadda Soomaaliyeed bedel khayr qabo inuu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa jannadii wuxuu ahaa nin diinta jecel oo hidaha jecel oo dhaqanka Soomaalida jecel oo afka Soomaaliga jecel oo dadka Soomaalida jecel oo dhulka Soomaalida jecel oo sharafta Soomaalida jecel oo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed jecel oo midnimadeeda jecel oo magaca ummadda Soomaaliyeed jecel ayuu ahaa sidaa daraaddeed qof kasta oo Soomaaliya jecel buu hayaa tiiraanyada maanta inaan la wadaagno waxaan jecel lahay inaan fariintiisii iyo muxuu ahaayay oraahdiisii iyo suugaantiisii iyo dhaqankiisii iyo yoolkiisii iyo meeshii uu halgamayay in la ballan qaado in sidii loo sii wadahayo oo tilmaamihiisii iyo fankiisii iyo gabaygiisii iyo suugaantiisii iyo hidihii uu ku dhaganaa sidii loogu dhaganaado Soomaalinimada iyo gobonimada sidii loogu dhaganaado taasaan rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa jannada aqalka ugu sareeya jannada aqalka ugu sareeya inuu galo haddii ilaahay yiraahdo bedel khayr qaban ilaahayna siiyo qoyskana siiyo isagana jannadii ka waraabiyo shacbiga Soomaaliyeed waa shacbigaas ku xiran waa hal shacbi waa hal ummad waa hal taariikh leh waa hal dal leh waa hal xanuun leh waa hal horumar leh waa hal wanaag leh sidaa daraaddeed Soomaaliyeed inay isla xanuunsanayso si fiican baan u hubnaa waxay la tahay jawxo haddii aan ku soo noqdo muddadii ay halgamaysay qofkii taageeridda iyo wax kordhinta iyo gacansiinta jawxo ugu badnaa buu ahaa heesaha calanka halganka ogaadeynaya labadaa ninkii sameeyey buu ahaa riwaayadahaada weydeen suugaantaada weydeen gabayadaada weydeen shidaalkii wadaniga iyo nafti huraha shidaalkii siyaasiga shidaalkii kaadirka shidaalkii dhalinyarada shidaalkii Soomaalida isku xirkeeda iyo xusuusinta muxuu ahaay wixii aanshooda ayuu ahaa tiir weyn baa inaga baxay ilaahay bedel khayr qaba hayna siiyo jannadana isaga muxuu ahaay aqalka u sarreys hadda balsiya ku marti qaado xawdkii nabiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh